magaalada Burco waxaa maanta si rasmi ah lagaga dhawaaqay urur samafal oo loogu magac daray ururka caafimaadka waxbarashada iyo horumarinta Somaliland waxaana la sheegay in ururku ka shaqeyn doono dhinacyada caafimaadka waxbarashada iyo horumarinta arrimaha bulshada xafladii daafurka ururkan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Togdheer qaybaha kala duwan ee ururada bulshada iyo marti sharaf kala duwan ugu horreynna waxaa xafladda daafurka ururka ka hadlay gudoomiyaha ururka Jaamac Cali Muuse waxaanu tilmaamay baahida loo qabay urur noocan oo kale ah oo ka shaqeyn doona arrimaha bulshada ka soo qaybgalka shirkan aan ku qabanay maanta halkan oo ujeedadiisu ay tahay runtii inaan u daafuro ururka Somaliland Health Education and Development Service oo macnihiisu uu yahay ururka caafimaadka waxbarashada iyo horumarka Somaliland ururkan wuxuu runtii waxa uu ka turjumayaa ama uu turjumayaa inta bulshada ka midka ah aan ciido hadin hadday ku waalan tahay hadday ku umulayeen haddii ay magaranaysaa dhalinyarada aan awoodi karin iskuulada iska bixiyeen haddii aan magaranaysaa ay dadka waayeelka dadka ciido joogin runtii ma aha urur ujeedadiisu tahay in laga shaqaysto oo dadna waxa laga shaqaysanay laga runtii ujeedada aan loogu jeedaa ilaahay loo geliyo waxa ay tahay in aan u shaqeyno ummadda Soomaaliland sidoo kale waxaa xafladan ka hadlay xiriiriyaha hay'adaha iyo maamulka gobolka Togdheer Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi waxaan uu sheegay in ka maamul ahaan ay la shaqeyn doonaan ururkan maadaama uu ka shaqeynayo arrimaha samafalka sidoo kale waxaa xafladan ka hadlay Marwo Sahra Maxamed Xuseen Basbaaso gudoomiyaha ururka naaw ee gobolka Togdheer deeqa gabagabadiina waxaa soo xiray xafladan daafurka barsaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Ubax waxaanu sheegay in ka maamul ahaan ay ururkan la shaqeyn doonaan maadaama ay uu yahay urur ay bulshada gobolka Togdheer baahi weyn u qabtay xilligan waa Bashiir Ibrahim Universal TV Burco